waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imayl kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah shirkii turkiga uga socday soomaaliya itoobiya oo burburay oo lagu kala tegey iyo qodobada ay wafdiga itoobiyaanka ahy kaga guulaysteen kuwa soomaalida kaasi oo ay Itoobiya ku difaacday heshiiska is-afgarad ee ay la gashay Jamhuuriyadda Somaliland oo ay sheegtay Somaliland in ay tahay dal ka gooni ah oo ka madax bannaan 1960kiina xorriyadiisa ka qaatay Ingiriiska waraaqihii ay soo qortay boqortooyada Ingiriiska boqoradii u talinaysay ee madax bannaanida siisay Jamhuuriyadda Somaliland oo wafdiga Itoobiyaanka ay miiska soo saareen dhinaca kale warqadihii uu xasan sheekh maxamuud u saxeexay mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha Somaliland kaasi oo shirkii Jabuuti ka dhacay Disembar 2023 uu xasan sheekh maxamuud ku qiray inay Somaliland dal madax bannaan ahayd oo markaa xorriyadiisa ka qaatay Ingiriiska oo laba dal oo isku biiray ahaayeen iminkana ay sharci u leedahay inay heshiis la gasho cid kasta oo ay markaasi la heshiinayso waraaqahaas iyo wafdiga Itoobiyaanka ay indhaha kaga dhufteen wafdigii uu horboodayay ninka fiqi la yiraahdo oo markaasi isagu kooxii xag jirka iyo maxaakiimta ka tirsanaan jiray oo doonaya wax walba jujuub inuu ku marsiiyo iyo dhulka annaga leh oo markaasi Soomaaliba wada lehdii meesha la shir tagay kaasi oo Turkigii dhexdhexaadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu uu argagaxi ama kaag markaasi meel uu wax marsiiyay uu garan waayay shirkii oo lagu kala kacay oo markaasi ay noqotay Itoobiya inay ku adkaysatay heshiiskii is-afgarad ee la gashay Jamhuuriyadda Somaliland haddaba dhinaca kale waxa aynu eegi doonaa heshiiskaasi oo hadda markaasi is-afgaradkaasi oo hirgelaya madaxweyne muuse biixi cabdi oo la filayo toddobaadka soo socda in uu ka degi doono Addis Ababa sidoo kale imaaraadkana tegaya qodobada iyo qodobo kale ayaan daaha ka rogaynaa iyo guusha Somaliland soo hoyatay ku soo dhowaada barnaamijka وهاجان ku bilowna barnaamijkee shirkii uu Turkigu ku dhexdhexaadinayay dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa gabi ahaanba burburay sidaad ku maqlayseen barnaamijka iyo xalay xilliyadii dambe saaka waa berigii aan soo daayay iyadoo qaybtii hore lagu kala tagay ayayna ogeyn qaybtii labaadna maanta ayaa lagu kala kacay xitaa markaasi laysma soo garab istaagin oo shirkii jaraa'id ee uu qaban jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu si wada hadaladii hore ayaa laga maagayaa ilaa ayada oo markaasi wuxuu ku hadlo ayaa la garan laayay laakiinse warqado yar oo markaasi ay soo saxaafadda la wadaageen ayay sheegeen in wada hadallo kala saddexaad loo ballamay marka hadda reer Somaliland waxaad ogaataan wada hadalladu had iyo jeer waa iska moogtahay mubaax waa iska socdaan iminka Ruushka iyo Ukraine ta istilaysa ee moogtahay dagaalka xuma dhex marayo haddana bil walba dhowrkii biloodba marba wada hadal isku yimaada way wada fadhiistaan way wada hadlaan haddana dagaalku uu socdo yacni markaa haysoranina marka ay Soomaaliya iyo Itoobiya ay wada hadlayaan dawladda Itoobiya heshiiskii Somaliland bay ka noqotay iyo rag badan baa moogtahay iska qiirooday oo iska sii hor cararay oo markaasi yiri khalaas mar haddii uu wasiirkii Turkigu hadlay uu yiri Itoobiya badii baa la siiyay Soomaaliyana way ogolaatay yiri rag badan baa is dhiibay marka waxaan idin sheegayaa diblomaasiyadda ayaa ku yar raggaasi oo moogtay may baran siyaasadda rag badan oo siyaasiyiin la moodayay oo moogtahay aqoonyahan la moodayay oo moogtahay dad ay qanjaa joogto qarannimada Somaliland ay ka go'an tahay xitaa maalintii ugu qanaadhahay ay ka go'an tahay la moodayay ayaa hor cararay moogtay hadalkii uu iska hadlay wasiirka Turkiga ee arrimaha dibadda oo yiri khalaas maanta inoo dhamaatay iyo dawladdii biixii ka soo jeesteen iyo qaar baa xitaa moogtay wasiirka arrimaha dibadda eryanayo lahaa waa fadhiid iyo يعني وليا الله لسكما خلخله موقت قلب سلسلك لما يعني قلبك ويان دقدقاق ما qofku waa inay qarannimada ka go'naato sida imika diintu qofku ka go'an tahay hadii midi la marinayo tusaalahan diintaada ka noqo soo lama oran waa in gows dambeed ka dhigataa qarannimaduna waa sidaas leeg ma wax ciyaar moogta inaad si horboodo tiraahdo khalaas waynaga waynoo dhamaatay finish ku kala kaxeeya meesh qaar baa fagax adyaabay si orodka ka sii dhacay waana
dhahbaluuka hadiya hadalka hore wasiirka Turkiga arrimaha dibadda ku hadlay bay qaar badan moogtay joorada dhulka dhigeen marka iska gabgab bay ahayd Turkigu gabgabtan uu sameynaya iyo moogtay waxaan xoolo ku banaysanaya khayraad baa la siiyay resource ka dhamaay lahayd Soomaaliya ayay gacanta ka saartay badii bay gacanta ka saartay saliidii ay badda ugu jirtay bay yiraahdeen Turkiga uu qaado marka ninkan khayraadkan uu banaysanaya ayuu meelaysanaya dee gabgabtiisana inaad qarannimadiina rag badan baa la hadlaya mumkin kasto wallahi rag fara ku tiriso moogtay mujaahidiin oo qaranku garab istaagay maalintii ugu adag tahay dee la mari waayay oo malaha dhowr nin baan ku ahayn moogtay xoogaa ayaa moogtay jiro wallahi laakiin rag badan bay ka baahdeen dharkii على كل حال هذه سوق هذا ما وحويان وهذا الذي هو لو كلا كعي وي بربران إثيوبيا وح أي تري أنو كمان نقول يو MOU كان سومالي لان لقلي marka barnaamijkii horena doorta ku noqon maayo dhowr qodob kale laga wada hadlay waan idin sheegay ay Soomaaliya tirana bada ku siinaya ana ku geynaya markaasi badaha Somaliland marka anaga ku siinay ku badaha Somaliland shuruud bay ku xireen waxa ku leeyahay hadaad nasiinaysid deena geeba oo noo sax imikada ana markaasi waftigeega kaxay oo goobtii badii naga daji badaha moogtay berbere ilaa iyo sayla inta u dhaxaysa way ku adkaatay Soomaaliya bogtay taasi waxa ku noqotay markii uu horeysay qaacadii uu horeysay halkay ku jabeen halkaas ahayd ka noqon meena ba ku dhaadeen MOU gane iyagu xilaayeen MOU ka noqon meena idinku horta ma geynaysan halkaan doonayno kalkaan noo saxiixa barinayna dhaqaajiyo naga dajiyay bay ku dhaadeen shuruudaas ku adkaatay marka horta waxay Soomaaliya iska soo horeysiisay nin kale yiraahdo fiqi oo kooxaha jirka argagixisada oo ay ognahay maxaakiimtii ka tirsanaan jiray cadaawad kale Soomaaliland qabo xiriir walaalkii waa ka tirsanaa dadkii garaacayay Soomaaliland moogtahay waqtigii 88kii marka ninkaas oo ciilayo oo ciilan dhinaca kalena maxaakiimtii ahaa oo moogtay kooxaha argagixisada la shaqeysta sida doctor Xasan Sheekh dawladiisa waxa la dan qaran macnaheedu haddaan idin fasiro waxa weeyaan argagixisyo waxa ku dhex jirta iyo shabaab iyo moogtay dawladii reer galbeedka la shaqeynayay ay ka kooban tahay dan qaran macnaheedu waa moogtay tanta keentay weeyaan marka ninkan ay wasiirka arrimaha dibadda ay ka dhigeen waa xaq jir badda unuga alla uma kaga dhigsantay laakiin aqliyad shaqeynaysa iyo sharciyadii caalamiga midna ma garanayo Itoobiya waxay soo hordhigeen waftigooda arrimaha dibadda moogtahay wadahadallada ugu qayb galayay wax walba documented bay ahaayeen sharciyadii caalamka oo dhan bay waafajinayeen waxay Soomaaliya markiiba ku carartay sharciga caalamiga la waafajiyo waan ogol lahay bay ilaa sharciga caalamiga oo waafajinayna tan heshiiska la galaynaaba ma aha cirka ka timid ee gudaha imka dhalatay tii waa tan madax banaanideeda markay qaadatay boqoradii Ingiriisku warqadii ay noo soo dirtay madax banaanida inagu siisay bay hordhigeen miiska hortiisa ay ku yiraahdeen wadankan anu heshiiska la galaynaa tii Soomaaliland baa la yiraahdaa British Somaliland baa la yiraahdaa wata xornimada qaadatay wata boqoradii Ingiriiska moogtay xornimadii ay siisay UN tay taala warqada imka anu haynaa bay ku yiraahdeen oo ka soo helaysaan tii dalka xuduudaha caalamiga leh ee moogtay sharciyadii qaaradda Afrika waafaqsan ee moogtay xuduudihiisa iyo dhulkiisa iyo badihiisa ay ku jiraan khariirada iyo moogtay sharciyada AU-da UN ta laga soo helayo tii anu wadankaas heshiis la galayahay bal waxa igu haysataa sheegay buu qodobkii hal waafajiyo qaramada midoobay horta halkaas ku jabay oo wadankan heshiiska la galay oo wadan qaramada midoobay ka tirsan buu ku yiriyo wata moogtay madax banaanida goortay qaateen laba calina kuma murmi karaan midowga dhacayna tusoo waraaqad ku heshiisay buu ku yiraahdeen wadan ku noqoteen waxa moogtay iska feerbal ah oo afkuna iska raacdeen markii dambena islaysanad kala noqoteen laakiin sharciyada caalamiga waan waafaqsanay wana ta Soomaaliland tan heshiiska la galayna waa ta 1960 qaadatay madax banaanida warqadii ay Ingiriisku ku siiyay xornimadana waa tan taasi waa qodob halkaas horta markii lagu kala booday haddana waxbay sii yara eemeeyeen على كل حال إثيوبيا يدو waxay tiri MOU-ga kama noqonayo wadankaasina oo wadan la galay heshiis idinkuna dawlad jirta ma tihiin konton heshiis baad la gasheen oo moogtay la farmaajo ay la galay wax alla la xasoconaya ma jirto oo waqti wadika Xasan Sheekh wadigii Socodsiin waayay heshiisyada Awraba على كل حال gir baa la istaagay sidii bay wadahadalada ku burbureen Turkiga ayadana yidhi moogtay wadahadalada saddexaad baa la qabanaya ayaa hawlahaasi laakiin se waxaan idin ogahay in moogtahay hadda kadib wixii la diyaar galoobaya waa heshiiskii rasmiga ah iyo aqoonsiga Soomaaliland
waxaana la filayaa wiilka soo socdaba markaasi in howlahaasi ay bilaabmayaan. Madaxweyne Biixi waxa uu tegayaa markaasi safar Imaaraadka Carabta markuu ka soo noqdona soo noqoshadiisa Addis Ababa ayuu toos u tegayaa. taasi aniga meel igu qora sidaasana aqoonsigii Somaliland ku hirgalay. Guul iyo gobonimo leeyahay.